بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meelol baad inaga daawanaysaan kuna soo dhawaada warka telefishinka Royal oo idinkaga imaanaya xaruntii saddexii aan ku leenahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay kamid noqoshada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya heshiiska qaramada midoobay xuquuqda naafada. Munaasabadan uu ku dhaqan galiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kamid noqoshada dowladda Federaalka Soomaaliya ahdiga qaramada midoobay xuquuqda dadka naafada ah ayaa ka qabsoontay madaxtooyada waxaana goobjoog ka ahaa kulankaasi wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Marwad Deeqa Yaasiin Xaaji iyo agaasimaha madaxtooyada qaranka Dr. Nuur Diiriye Xiisi fursade maanta waxa alla mahadiis ah gabagabadeedii maanta inay tahay oo ah in madaxweynuhu uu saxiixo taas ayaana maanta dhacday madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta saxiixay taasna waxay soo gabagabeynaysaa habraaci soo socday maantana si oo maaragtay dhab ayay Soomaaliya ahdigaas u saxiixday markuu madaxweynaha uu saxiixo ahdigan wuxuu muhiim u yahay sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay qaramada midoobay sidaas darteed ahdiyada adduunka in laga mid noqdo waa muhiim sida la socotaan sanadka 2018 madaxweynuhu wuxuu saxiixay sharcigii dhisidda hay'adda dadka naafada ah taas ayuu saxiixay waxa kaloo hadda ay wasaaraddu ay maaragtay gabagabo u ah oo ay mardhow soo dhameyn doontaa sharcigii weynaa ee xuquuqda dadka naafada ah kaas oo taaban doono dhinacyo badan dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada xuquuqdooda shaqada marka waxay noqonaysaa sharci weyn oo arrimahaas oo dhan maaragtay ka shaqeeya taasna way soo dhamaan doontaa ahdiga sidiisa wuxuu ka hadlayaa xuquuqda dadka naafada ah dhinacyo badan wuxuu ka hadlayaa xuquuqda ay u leeyihiin inay waxbarasho la siman muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kala helaan sidaas oo kale inay helaan daryeel caafimaad sida muwaadiniinta Soomaaliyeed sidaas oo kale inay shaqo helaan waxa waaye waa ahdi oo maaragtay si fiiro gaar u yeelanaya xuquuqdooda ay leeyihiin oo dhinacyo badan noloshooda inay leeyihiin xuquuq ay maaragtay guryaha ama dhismooyinka dawladda iyo kuwa private-ka ahba inay leeyihiin fursad u musaabixaysa in ay maaragtay sida muwaadinka kale ee 66 qaba inay u gelin karaan ee hawsha ay rabaan ay ka fulin karaan marka sida dareemaysid waa ahdi oo dhinacyo badan ka eegaya hadhoon waxa loo baahan yahay in ahdigaas dawlad kasta ay shuruuc gaar ah iyo siyaasado u suubsato taas waxa waaye mid xigto oo ah wasaaraddu mid ay ka shaqeynayso oo ah iyadoo ahdigaas dabaqaysa inay suubiso shuruucdii iyo siyaasadihii muwaadiniinta Soomaaliyeed u heli lahaayeen xuquuqda si la siman midka adiga leedahay ama midka aniga leeyahay